Asalaamu calaykum. Magacayga waa Dr. Maxamuud Maxamed. Maadaama maanta ay tahay maalinta caalamiga ee dhiigkarka adduunka, waa maalin loo asteeyay in bulshada lagu baraarujiyo halista cudurka dhiigkarka iyo muhiimadda ay leedahay in laga hortago. Daqiiqadaha yar ee aan wada joogno waxaa ka wada hadli doonaa waa maxay dhiigkar, calaamadaha lagu garto, maxaa keeni kara, sidee looga hortagaa. Sidoo kale waxaa kuu sheegi doonaa xubno ka mid ah jirkaada oo saameyn iyo dhibaatooyin u geysan karo haddii aan si wanaagsan loo xakameynin. Waa maxay dhiigkar? Dhiigkarku waa marka cadaadiska dhiigga xididdada uu sare u kaco muddo dheer. Waa cudur inta badan aan lahayn calaamado muuqda, taasoo sababta in dad badan aysan ogeyn inay qabaan. Waxaana lagu magac daraa dilaaga aamusan ama cudurka aamusan. Calaamadahan aan kuu sheegi doono ma ahan calaamado soo muuqda waqti hore. Madax xanuun joogto ah, wareer, wadno garaac degdeg ah, daal joogto ah, aragga oo daciif ah, iyo neefta qofka uu ku dhegta. Waxyaabaha qofka u nugleeya inuu ku dhaco dhiigkarka waxaa ka mid ah qofka isticmaala cusbo fara badan, qofka cuna cunnooyinka dufanka leh, qofka aanan jimicsiga sameynin, qofka caba sigaarka, qofka walwalka badan, qofka cayilan, iyo qofka qaba sokorta. Intaas aan kuu sheegay haddii aad leedahay waxaa u nugushahay inuu kugu dhaco dhiigkar. Si aad uga badbaado inuu kugu dhaco dhiigkar, waxaa u baahan tahay inaad samayso intaan. Cunnada aad cunaysid waa inaysan ku jirin ama ku yaraadaan cusbada iyo dufanka. Inaad samayso jimicsi joogto ah. Maalin kasta 30 daqiiqo ka samee, isbuucina 5 maalin ka mid ah samee jimicsi joogto ah. Yaree cusbada iyo sokorta. Ka fogow sigaarka. Cab biyo kugu filan. Hubi dhiigkarkaaga si joogto ah maalin kasta ama maalin dhaaf u cabir heerka uu marayo. Waxaa jira xubno muhiim ah jirkaaga uu saameeyo dhiigkarka haddii aan la kontaroolin. Waxaa ka mid ah wadnaha, ku keeni kara hadhow inuu wadnaha uu ka istaago. Kelyaha, keeni kara hadhow kelyaha shaqadoodii inay gabaan. Maskaxda, kugu dhici kara cudurka lagu magacaabo faaliga, afka qalaadna lagu yiraahdo stroke. Dhiigkarku waa cudur aamusan oo si tartiib ah u waxyeeleeya jirkaaga.